يدا عفاي الباب وفركي وشيل له ويرمى انتي عالمي يدو وقاسك الالقالا اكتوبري انا لها عليو قبيل ليك غريبي هديو دليليو تحت عاسيتي من يدا عفاي الباب وفركي وشيل له ويرمى انتي العالمي يدو وقاسك الالقالا اكتوبري انا لها وديتك يا دنيا عليك وهي وبحسورة دوغيك راعية بالنمو وآلي جدي الالقالا اكتوبري انا لها وديتك يا دنيا عليك وهي وبحسورة دوغيك راعية بالنمو وآلي جدي الالقالا اكتوبري انا لها julaay 1971 madaxweynaha golaha sare ee sawradda Charles Siyaad isaga oo ka hadlaya dalalka Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta dalalka aynu jaarka nahay waxa uu si weyn u tilmaamay inay tahay lagama maarmaan in heshiis iyo afgarasho laga gaadho dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheena dariskeenu ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaalla oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay qaybiyaan annaga walaalahan iyo annaga intay qaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhaxdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danahanaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu guddoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xun ugu guddoomiyeen ayaa qoomkaas yiraahdaa ama shaqadigaas yiraahdaa haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan waxaan anigu taa ka leeyahay ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doona marka wax tirtiri kala ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u guddoomin dadkanagii oo isku leynaa mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaala ay si fiican ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaala ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jiraa inay ku qaybsadaan sidaas xaq ah haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaan Soomaaliya Franchise waxaan sunneenahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada afgaradkaas waa inuu u socdaa
oo ay dawladda Faransigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay ogolaato khiyaarkooda inay ogolaato xornimadooda inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Faransiga annagu haddii waliba loo eego taariikhda dawladda Faransiiska ah oo ka dhalatay dawlad revolutionary waligeed ba ahayd oo xoreysay Afrika oo idil oo ay kaga hartay Soomaaliya Faransiis inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaasu waa tala ugu fiican ama waa siyaasad ugu fiican baan is leeyahay Africa hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad ade hurdoy hadbaun aye hurdoy hey Africa hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad ade hurdoy hadbaun aye hurdoy ahamal sara hurdoy hayin sidisa hurdoy la hogaaminaya ahamal sara hurdoy hayin sidisa hurdoy la hogaaminaya lama hilade away hana dadade lama hilade away hana dadade doqombo